shirkani oo ay martigelisay dawladda Denmark ayaa waxa ka soo qayb galay wakiilo ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah maamul goboleedyada ka jira dalka ururada caalamiga ah iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya sida qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika jaamacadda Carabta hay'adda booliska adduunka iyo wadamo ay kamid yihiin Seychelles Kenya Tanzania iyo Mauritius oo kamid ah wadamada aqbalay in wadamadooda lagu maxkamadeeyo marka la soo qabto burcadbadeeda ayaa intii uu socday waxa looga hadlay arrimo la xiriira habka maxkamadeynta burcadbadeeda iyo halka lagu xirayo taasi oo ahayd mid lagu kala aragtiyo duwanaa shirkan waxa loo yimid marka horta waxaa jira 5 urur oo loo yaqaan content groupeska shantooda 5 shaqo ay kala qaabilsan yihiin kan waxa kii labaad weeye wuxuu qaabilsan yahay xagga sharciyada waxa laga hadlayaa badanaa dadka Soomaalida ee burcadbadeeda ah ee la xiro dambiyadooda iyo qaabka loo xireeyo sidoo maartay xabsiga loo geenayo iyo waxyaalaha arrimaha noocaas la xiriira laga hadlayaa halkan waxa kale oo lagu soo qaadayaa hadda oo aan u nimid arinta ah in maraakiibta badda maraysa la saaro ciidamo ilaaliya oo kamirayaasha security gaarka ay saartaan arintaas yani keenaysa khatar keenaysa waayo dadka badan ku dhimanaya waa dad Soomaaliya weeye waxa laga yaabaa in marad badan ku dhintaan dadka kalluumaysta waxaana kamid tahay dhibaatooyinka hore u jiray waayo dhibaatadii abuurtay burcadbadeed waxa kamid ahayd in dadkii kalluumaystaha loogu yimid badoodii lagu garaacay lagu laayay dooyin laga jabiyay biyo kulul lagu shubay hadeerna waxay imaanaysaa in maraakiibtii ay saartaan ciidamo cusub oo hub saaran oo laga yaabo mararka qaarkood intay la ilaaheen burcadbadeeda inay laayaan dad kalluumaysta ama dad masaakiin ah shirkan uu nimid Copenhagen waxa weeye dhamaystirka prison law sharciyada xabsiyada maxaabiista weeye sidaasaan halkan u nimi waan soo wadnay muddo dheer baan soo wadnay haddana dhamaystirkiisii baan haddana conclusion baan ku jiraa haddana tiijooyin ka soo bixi kara xabsiga waxa weeye xanaaneynta maxaabiista dhaqaaleyntooda nidaaminta xabsiyada iyo shuruucda ay u leeyihiin human rights-ka sidii rehabilitation loogu samayn lahaa muxuu ahaa bayraziga anigu xeerkan onclos 1982 ayaanu aqbalay oo xeerkayga ku muujinay inaan territorial waterskayga ku daboolo inaanu transfer of prisoners-na anigoo u eegayna xagga muxuu ahaa humanitariga ama Somali culture shirkani ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo kordhayeen talooyin ku aadan in habka maxkamadeynta burcadbadeeda loo wareejiyo gudaha Soomaaliya inkastoo taasi ay hortaagnaayeen caqabado ay ka mid yihiin inaanay xilligani gudaha Soomaaliya ka jirin xabsiyo iyo hanaan garsoor oo u diyaarsan in ay qaabilaan dadka loo haysto burcadbadeednimada Sahra Maxamuud Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed Copenhagen Denmark